السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeeni subaxnimo saakay waa subaxnimo sabti ah taariikhduna ay tahay 14 December sanadka 2024 haddaba barnaamijkeena waa kii subaxnimo waxaynu ku soo qaadan doonaa macluumaadka iyo wararkii ugu waaweynaa ee dhacay tan iyo intaynu kala maqnay waa huba inaad si weyn uga faa'iideysateen barnaamijyadaydii aan idiin soo gudbiyay shalay ilaa xalay iyagoo aad kaga bogateen macluumaadkii ay xambaarsanaayeen haddaba barnaamijka subaxnimo mar walba waxaynu ku soo qaadanaa xaaladda guud ee gobolka bariga dhexe muxuu waagu ugu bariyey xalay maxaa lagu kala hoyday sidee xaaladu ahayd qodobada barnaamijka subaxnimo aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah turkiga oo digniin adag u diray Israa'iil daandaansiga iyo dhibaatada ay ka geysanayso gardarrada Suuriya ayaa lagala hadlay waxaa isdaba dhigay digniinaha wasiirka arrimaha dibadda Turkiga iyo wasiirka gaashaandhigga oo siyaabo kala duwan digniin adag ugu diray Israa'iil taasoo ka macnaa Turkigu inaanu aqbali doonin hadda kadib xadgudubyada Israa'iil ay ku hayso dawladda cusub ee waddanka Suuriya dhulka Suuriya iyo waliba hantida waddanka Suuriya waxayna sheegeen Turkidu inay safaaradoodu shaqo bilaabi doonto maanta oo Sabti ah haddaba warkaas oo faahfaahsan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona waxaa soo kale barnaamijka aan idinkugu hayaa midowga Yurub dawlado badan oo ka tirsan oo saf ugu jira inay safaaradahooda dib uga furtaan magaalada Dimashq ee waddanka Suuriya waa lagu kala ordayaa Suuriya sidee wax u jiraan tafaasiil ayaan idinkaga hayaa arrimahaas barnaamijka qodobka ugu xiisaha badan aan idin hayo waxay tahay Jarmalka oo qaati billaahi ka taagan diyaarado drone ah oo warshadihiisa iyo goobaha militarigiisu degan yihiin dulhay haabaya iyadoo aan la ogeyn cidda iska leh haddaba Jarmalkii ayay baashu ku kululaatay yaa taabtay ma ruushka soo galay ma qolo kala gashay tafaasiil ayana hawlaha wixii soo kordhay oo dhan idinkaga haya inta aan barnaamijka ku jirno wixii warar ee soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turki qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halka waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa carruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halka ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan bangiga caalamiga ah ee IBS Bank oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynaya inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid eheladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaalada caalamiga ah ee Ria Money Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Ria Money Transfer wixii faahfaahin boqolaanta kuugu dhow ee IBS Bank nagaad organic Soomaaliya waa rugta rasmiga ah ee laga heli karo alaabaha dabiiciga ah ee la isku qurxiyo rag iyo dumarba rugtu waxay haysataa aqoonsi caalami ah dhammaantoodna waxay ka samaysan yihiin biyada dalkeenna ka baxda oo si dhowran loo soo saaray waxaad ku heli kartaa alaabaha nagaad jumliya tafaariikh xarunta dhexe ee nagaad organics waxay ku taallaa Muqdisho gaar ahaan Taleex Mall dhabarka dambe ee suuqa Xayaat ee Taleex xarunta labaad ee Muqdishona waa airportka Aadan Cadde meel kasta oo aad joogto waxaad ka iibsan kartaa alaabta nagaad sida website-yada shirkadda Amazon eBay etc iyo Carrefour wixii faahfaahina fadlan kala xiriir cinwaanada shaashada mahadsanid ku nagee naftaada alaabta nagaad organics kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena subaxnimo saaka waa Sabti barnaamijkuna waa kii ugu horeeyay qodobka ugu horeeyay barnaamijkana waxaynu ku bilaabaynaa
turkiga oo markan hanjabaad bilaabay u adkaysan waayey xadgudubka joogtada israa'iil ay ku hayso dalka muslimka ee dariska lahaa ee suuriya. turkigu wuxuu taagan yahay ma idiin dulqaadanayn, wallay ka tahay mar dambe aan yeeli doonin sida aad u dhaqmaysaan inaan idinka aqbalno. adduunka waa idinka aamusan yahay, gardarradiisa usoo wadeen ma dariskayga keenteen, ma shaqaynaysuu leey. haddaba wuxuu ka samayn karo turkiya iyo wixii kale waa arki doonaa, ma af keliya ma ficiloo ku dari doonaa lama yaqaano. laakiin sheekada waxaa adkaynaya oo wariyaashu ay leeyihiin turkidu markan waa ka dhab. wasiirka arrimaha dibadda oo waraysi bixinaya hanjabaadaas wuu tuuray. wasiirka gaashaandhigga oo baarlamaanka isaguna jooga hanjabaadaasuu tuuray. arrinkaa marka waxaa la leeyahay turkigu waa ka dhabalay markan dulqaadkiyaa kasoo dhammaaday. wuxuuna sidoo kale turkigu leeyahay safaaradayda dimashq safiirkii ku-meelgaarka iyo shaqaalihiisii shalay oo jimcaheedee dhoofeen, sabtida maantaana albaabada loo furaa shaqaa bilaabanaysuu leeyahy. isku dah dhan ma jiruu leeyahy. dowladdan waa garab istaagaynaa, waa dhisaynaa, marka caqabadaha ay israa'iil ku haysana waa ka qabanaynaa uu leeyahy. waaya siday wax u dhacaan buu arkaynaa. haddaba wararkii ugu dambeeyey sheekooyinkan laga qoray haddaan idinla wadaago. haddaba saaki aljaziira waxay qoraysaa, waxay leedahay turkigu wuxuu u digayaa israa'iil daandaansiga ay suuriya ku hayso. wuxuu sidoo kale turkigu sheegay inuu dib u furayo safaaradiisa uu ku lahaa magaalada dimashq. haddaba warbixintu way sii socotay. waxaa leeyahay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga hakan fidan waxa uu sheegay in turkigu uu dib u furayo safaaradii uu ku lahaa magaalada dimashq, waxaana ay shaqadu bilaabaysaa maanta oo sabti ah, iyadoo safaaradaasu ay xirnayd tan iyo sanadkii 2012 sanad kadib markii uu bilowday kacdoonka ka dhanka ah xukuumaddii bishaar al asad oo dibadbaxyadu ay meel walba hareeyeen waddanka suuriya. haddaba markii la riday bishaar al asad, turkigu waxa uu noqon doonaa dowladihii ugu horreeyey ee halkaa safaaradahooda dib ugu celiya. fidan waxa uu sidoo kale u digay israa'iil daandaansiga iyo khataraha ay u geysanayso dhulka suuriya, gaar ahaan dhulka ay kasoo gashay buuraleyda golan. maruu waraysi siinayay kanaalka turkiga laga leeyahay ee la yidhaahdo NTV, waxaana uu sheegay in safaaradda dadkii ka shaqayn lahaa ergada oo la magacaabay ay khamiistiiba baxeen, oo ilaa khamiistii ayaa la magacaabuu yidhi, jimcihiina waa baxeen, waxayna shaqadoodu bilaabanaysaa sabtida maanta ah sida uu yidhi. waaya marka kaas waa hakan fidan waraysi u bixiyey, arrintaa uu kaga hadlay, digniinna waa u diray. dhulka dhibaatada a ka haysataan suuriya ka geysanaysaan israa'iil waa inaad joojisaan u leey. waaya waxaa ka daran wasiirka gaashaandhigga ee turkiga ayaa isna hadlay. waa kana wakaaladda wararka ee turkiga anadol waxay leedahay wuxuu u digay wasiirka gaashaandhigga ee turkiga ninka la yidhahdo yashaar golar jimcihii waxa uu u digay israa'iil daandaansiga iyo dhibaatada cusub ee ay ka geysanayso iyo weerarada cusub ay suuriya ku hayso. hadal uu ka jeedinayay kulan uu la lahaa dhinaca miisaaniyadda wasaaradda gaashaandhigga turkiga ku saabsan jimcihii baarlamaanka turkiga uu kula lahaa, halkaas ayuu ka sheegay hadalkaas. wuxuu sheegay israa'iil weerarada argagixisada ah oo ay gelayso iyo iska dhagatiridda qaanuunka caalamiga ah sida gaza iyo meelo badan ma loo dulqaadan doonuu leey. miisaaniyaddiina waa soo kordhisanaa wasaaradda gaashaandhigga, baarlamaankii joogaa ma aqbalaynu leey. ninka erdogan iyo tiimkiisa waa soo jeesteen markaan, waxay leeyihin intaa ka badan ma adkaysan karno, bes waa intaa noogu jooji israa'iiley, waxaa burburin karta burburisay khalaas, markaan kadib ma la aqbalayno. qaanuunka dooliga waa diideen, wax walba waa diideen, marka hawshaas halkaasee iyaduna ay maraysaa. dhanka kale waxaa la sheegayaa dowladda cusub ee suuriya inay golaha ammaanka u gudbisay warbixin ay kaga cabanayso israa'iil. waa dowladda cusub ee suuriya waxay leedahay meeshaan adduunka golaha ammaanka iyo waxa kan iyo naga qabta nimankan
caado ka dhigtay inay mar walba diyaarada nagu soo weeraraan. sidee wax ka yihiin adduunyada maba hadlaysa miya? annaga dowlad cusub aan nahay hadda wadankii imaanay, nimankan duqaymar 24 saac iska wadaan. mar walba meel hub lagu sheegay nag hubka lacagaa lagu soo bixiyey, dowlada iskale waay noo daba taaganta, wax la hadlayo male miya? marka iyaguna khudbadda adag ayay waxay ka jeediyeen aan leeyahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. qodobka isaguna halkaasaan kaga gudbaynaa. qodobka kale ee barnaamijka aynu ku falanqaynayno wuxuu yahay dowladihii caalamka gaar ahaan kuwii yurubiyanka ayaa waxay doonayaan inay safaaradooda sida ugu dhaqsiyaha badan uga furtaan magaalada dimashq. magaalada dimashq waa lagu kala ordayaa, qolo walba waxay leedahay dowladan cusub ee halkaa ka dhalatay saaxiib la noqo. waxaa la yaab leh kuwii carabta ee horey u joogay waa sii joogayna ay dheheen, meelaa u socno male. sacuudiga iyo imaaraadka iyo waxaa kadhi waa joogayna ay dheheen. turkigana khamiistii la magacaabay, jimcihii waa dhoofeen, sabtida baati waa fureen. kuwii yurubiya kale haddaa warkooda idiin hayaa, iyaguna waa soo kala ordayaan. meesha waxyaab laa ka jira. haddaba marka aan idin tuso mas-uul oo yurubiyanka ka tirsan ayaa wuxuu sheegay dhowr dowladood oo ka tirsan midowda yurub inay diyaar u yihiin inay dib u furaan safaaradihii ay ku lahaayeen magaalada dimashq ee caasimada wadanka suuriya. haddaba mas-uul sare oo ka tirsan yurub ayaa jimcihii wuxuu sheegay in dhowr dowladood oo ka tirsan midowda yurub ay diyaar u yihiin inay dib u furaan safaaradihii ay ku lahaayeen caasimada suuriya ee dimashq. waxa uu sheegay in ay markaa dowladahaasu dhowaan furi doonaan, isagoo ka gaabsaday inuu magacyada dowladahaasi sheego. waxaana uu sheegay midowda yurub inay soo dhaweynayaan ridistii bishaar al asad oo ay sheegeen inuu ahaa nin dhibaato badan ku hayay shacabka wadankaas. marka dowladihii marka halkaasay u socdaan, waa lagu kala ordayaa. maraykankii wuxuu leeyahay waxaan rabnaa xiriir inaan la samaysano nimankan. ruushkii wuxuu leeyahay warnimayo aan iska joogo saldhigyadeeda iyo ogolaada. maanta oo sabti hore idinkugu sheegay urdun shiraa ka furmaayo wasiirada arrimaha dibadda carabta kuwa ugu tunka weyn iyo turkiga iyo waxaa tegaya iyo maraykanka, iyaguna saacadaha soo socduu furmi doonaa. marka wadankan waa wadan aada loo danaynayo oo maaragtay dowlad kasta ay rabto dowladan dhismaysa inay cilaaqad la samaysato iyo xiriir. qodobka isaguna halkaasaan kaga gudbaynaa. dhanka kale dabaaldegyadii ayaa xalay ilaa shalay oo jimcaha ka socday wadanka suuriya meelo badan. dadku waxay u dabaaldegayeen jimcadii loogu magacdaray jimcadii guusha. ilaa xalay bruleera la tuurayay. waxaa hadlay axmed sharac, ninkii taariikhdiisii xalay aan ka sheekeeyey barnaamijkaygii xalay habeennimo ayaan kaga sheekeeyey. ninka aan uu daawan karaa waxay ahayd sheeko cajiib ah. abu maxamed al-juulaani, ninka kaabaha ah oo weliba lagu tilmaamo hadda warbaahinta reer galbeedku waxay leeyihin madaxweynaha qarsoon ee suuriya waa ninkaas. taariikhdiisa xalay ka sheekeeyay oo yaab lahayd. barnaamijkii xalay taariikhdiisa ayaad ka helaysaa oo halkaasaa ka daawan kartaa. ninkiyaa marka bruleeradii wixii markii la tuuro hadlay wuxuu yidhi markan waa inaan bilownaa dib u dhiska wadankeena. khalaas dagaal iyo rabshad dambe iyaan iska dhaaf. nin walba gurigiisii dumay ha dhisto, dib u dhiskii wadanka aan ka shaqayno, horumarkeena aan ka shaqayno. qadar xayeysiisa kadib sheeko yaablaan idiin hayaa ku saabsan jarmalka oo ku wareersan diyaarado daroona oo nafta u keenay meelay ka yimaadeen aan la garanayn. xayeysiinta kadib ayaa noo balan. sharikadda Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya. haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaano The View xaafadda Backlands, jidka 6 Avenue, City Park. dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah, waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol, 3 qol, 4 qol iyo weliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran. waa nooca loo yaqaano duplex. haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional, kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiime hanti yeelo. waana qiimo dhimis 50%. kala xidhiir telefoonada
telefoonada shaashada kaaga muuqda. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan. barnaamijkeennii subaxnimo saaki waa sabdi, waxaynu maraynaa qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka. haddaba qaybtan waxaynu ku faahfaahinaynaa waddanka jarmalka ayaa qaati wuxuu ka taagan yahay diyaarado daroon ah, haddana waxay dul imaanayaan goobaha militariga iyo warshadaha. maantao dhan way dul hayaabayaan, sawirrey ka qaadanayaan. cid iskalena lama yaqaan, yaab waa la yaaban yahay. haddaba markaan idintuso wargeyska la yidhaahdo asharqul awsad ayaa saaki wuxuu qoraya, wuxuu leeyahay jarmalkii cabsi ayaa la soo diristay kadib markii diyaarado daroona oo aan la garanayn ay dul hayhaabayaan goobaha warshadaha iyo meelaha militarigu uu joogo ayay dul socdaan. haddaba mas-uuliyiinta jarmalku waxay sheegeen diyaaradahaasi dul hayhaabaya daroonka ah oo aan la garanayn goobaha warshadaha iyo saldhigyada militariga ee muhiimka ah, weliba sida saldhigga la yidhaahdo ramstein oo dhinaca ciidamada cirka maraykanku ay isticmaalaan, ayaa waxaa la sheegayaa wakaaladda wararka ee faransiisku ay sheegaysaa in ay jarmalku aada uga baqeen diyaaradahaas. haddaba mas-uuliyiin ee jarmal ah ayaa waxay sheegeen in cabsidu ay sii kordhayso, loo malaynayo inay yihiin diyaarado basaasa oo dhinaca ruushka ka yimid, oo markaa ruushka uu soo dirsaday si loogu basaaso saldhigyada iyo goobaha gaashaanbuurta neto ay ku leedahay waddankaas, sabab la xiriirta dagaalka ukraine oo markaa haddii uu sii fido ruushka uu markaa hawl ka qabsan karo saldhigyadaas. waay marka waxaa la yaab leh, dadka wax falanqaynaya waxay leeyihiin diyaaradahan hadday arkayaan maa soo ridaan. diyaaradda dul hayhaabaysa meesha oo aysan garanayn, iyagana aysan lahayn, oo saldhigyada iyo warshadaha dul hayhaabaysa may soo ridaan. marka qaara waxay ku doodaan, waxay leen wayba soo ridi lahaayeene maray adeegatay oo ay sii socoto oo tagtay aan la ogaanaa u dhah. markaasaa raadaarku sheegaa waaba tagtayba iyadii, laakiin markaa hore hadduu raadaarku sheegi lahaa waaba soo ridi lahaayeena lagu leeyahy, waxbay ku dhufan lahayen oo ku raadin lahayen. laakiin maray adeegatay oo ay dhammaysatay hawsheeda tagtay ayuu raadaarkii inta soo qabtuu sheegaya maana tagtay. marka waxay ka cabsanayaan lagu leeyahay jarmalkii ruush waxaan inuu yahay, sababtoo a meelaha maraykanku degan yahay ee jarmalka iyo saldhigyada waaweyn iyo warshadaha iyo meelahaas dul taagantaha maantao dhan sawirra ka qaadaysa. marka waxaa leeyahay ninkii ruushaa gacanaa loo taagay, waa iska adeeganaa, waa iska tegaa. cid iskale lama yaqaan. diyaaradihii jarmal waa qaydhii, waa yaabaye. haddaba barnaamijkeenii subaxnimo saakay intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa. fakar iyo aragti waxaa ka qabtaan mawduucyada iyo qodobka is leedihiin, fakar waa ka dhiiban kartaa. fadlan noo soo qor, hana iloobinina barnaamijka inaad like samaysid oo aad sheergaraysid. haddaad nagala socoto youtube-kana subscribe oo aad nagu cusub tahay samey, facebookana follow garay. inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno asxaabay, mar walba waxaan idiin soo gudbinaa barnaamijyo xaqiiqda ku salaysan oo aynu idiin soo gudbino macluumaadka wararka halka aynu ka keennay. nabadgelyo.